jaamacadda iyo shirkadahaan Telesom xiriirka ka dhaxeeya iyada lafteedu runtii waa xiriir dhow. waxaan eegay ardayda shaqaalaha shirkadda Telesom saddex dhibaarmo bay ka koobantay. saddex dhibaarmo oo ka mid ah ayaan eegay ardayda shaqaalaha ka shaqeeya halka ay ka soo kala jebiyeen. waxa noo muuqatay boqolkiiba wax ku dhow 37 in ay ka soo kala jebiyeen jaamacadda Admas. boqolkiiba 23 ay gols ka kala jebiyeen. boqolkiiba 10 ay University of Hargeysa ka soo kala jebiyeen. waana specific ardayda ka kala jebisay kuuliyaddan IT-ga. marka waxaad moodaa meesha runtii ay ku horeysaa Admas inay tahay IT-ga oo runtii waxyaabaha mustaqbalka saamaynta dadkeena iyo dalkeena ku yeelanaya ay tahay. markan intaa ka tago ICT-gu marka ICT-ga la eegayo in general Sub-Saharan Africa marka laga hadlayo contribution-ka GDP-ga uu waddanka ku sameeya waxay ku dhowdahay nearly boqolkiiba 10 overall GDP-ga waddanka. waana runtii sector aad u muhiima inay Admas focus-ka saartana runtii waa strategic move ayaan saxay aadna muhiim u ah. mawduucan laygu qoray oo entrepreneurship-ka iyo digital transformation-ka ah oo runtii aanu digital transformation-ka markay noqoto muddo aan ku soo jiray 17 sanadooda. waxaan is leeyahay intaynu wax soo aqri lahayn waxa more relevant inagu ah odayaasheenii hore. hadal ayaa waxa laga hayay Dr. Adle Aadan oo waxay tiri odayaashii hore waxay lahaayeen ku dhac bay lahaayeen. entrepreneurship bay lahaayeen iyagoo laga yaabo inaanay wax aqriyi jirin ayay haddana heshiisyo ganacsi intay galaan ay keeni jireen waddanka. Telesom runtii waxa ay samaysaa muddo 10 sannadood ka badan waxay saboodgaraynaysaa ama taageeraysay oo ay gold banner u ahayd hay-ad la yidhaahdo Innovate Venture. hay-addaasu waxay ka shaqaynaysay oo runtii ka shaqaynaysay sidii dhalinyarada hal-abuurka leh loogu samayn lahaa platform laga caawin lahaa sidii ay go-to-market strategy u keeni lahaayeen. dad badan oo ka soo baxay oo ganacsatadoo e-commerce ku jiraana ay maanta runtii midhaheedii buranayaan. mas-uuliyiinta dowladda runtii dowlad ahaan waxay noo yaallaan in aynu qorsheeyaan u diyaarino mustaqbalka oo runtii jaamacadaha waxaa lagu dhiganaya ama iskalka aynu u baahannahay uu inline leeyahay ama bilaa qorsho ah xaqliqad noqon mayse ay qorshaysan tahay waxa aynu rabno nooca ay noqonayaan aynu soo saarayno in la dejiyo. jaamacaduhuna ay dadkii xirfadda lahaa ama skillkii lahaa ay soo saaraan. bahdayadan communication-kuna aanu u diyaarino platformkii ay dadku isticmaali lahaayeen. hadalku waa idinku dheereeyey raaliga ahaada. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyeynaya ardayda maanta ka garaajoodi garisay jaamacadda Admas. in halkan laygu yeedho laygu maamuuso aan hor mutaysanna jaamacadda aad baan uga mahad celinayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.